cudurka macaanka asaga cudurka laftiisa dhakhtarka qofka geenayo maxaa yeelay waxyaabaha u horeeya oo arkaya waxaa waaye baahi badan oo qabanayso. bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno cudurka macaanka. maanta waxay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee macaanka 14 November ayaa loo asteeyay maalinta macaanka adduunka. maadaama maanta ay ku asteysan tahay maalinta macaanka adduunka, waxaan xafiiskiisa kula kulannay Dr. Yaasiin Axmed oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed. waxaan su'aalaan ka weydiinay dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka macaanka. Dr. Yaasiin ku soo dhawow TV-ga Danan. maanta waxay ku asteysan tahay maalinta macaanka adduunka 14 November ayaa loo asteeyay. dhibaatooyinka uu geysto cudurkaasi macaanka iyo saameynta uu bulshada qaybaheeda kala duwan uu ku yeesho. aad u mahadsan tahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah maadaama waayahan dambe aan arkayna cudurka macaanka inuu Soomaaliya aad ugu soo badanayay. cudurka waa laba nooc aan dhahno, ama macaan ama sokorow ama diabetes sida hadda la yiraahdo. midka ilmaha ku dhaca midna ilmaha ku dhaca oo kaas waxaa la yiraahdaa insulin, waxaa lagu daaweeyaa cirbad. midna dadka waaweyn ku dhaca. waxyaabaha ilmaha ku keenaya waxaa noqon kartaa curf maalaha maxaa la hereditary noqon karaa aabihii iyo hooyadii iyo inay qabaan. laakiin dadka waaweyn aalaha waxa ku keena waxaa waaye fadhiga badan, exercise la'aanta, cuntada ay cunayaan si controlling. dalka waxaa laga cunaa bariis iyo baasto iyo misago iyo geley iyo kulligood waa carbohydrates miiran waaye, waa kicin karaan sonkorta. dhibaatada oo ku hayna waxaa waaye cudurkan cudur la isqaadsiiyo ma aha, laakiin waa cudur raaga waaye. qofka mar haddii la yiraahdo diabetes qabtaa waa joogto, daawadiisana waa joogto, ma aha dhiiggan fiirina sonkorta waa yartahay ma qaadanayo waa qaadanayo ma aha. mar haddii lagu sheego waa inuu joogto u qaataa. waxaa loo leeyahay wax kale ma aha, maxaa yeelay qofka horta aad u cateena qaaxada iyo diabetiga qofka inay jirkiisa dhameeyaan waxay ku qaadataa wax yar. labo keliyahoo ka hadlayna, saddex indhahoo ka hadlayna, xididadoo ka hadlayna. wuxuu halis u yahay cudurro kale inuu keeno oo qofkaas uu ku dhaco. marka wax la sahashado ma aha. qofka haddii mar uu qabo waa chronic waaye, daawada sidee tahay inuu qaato oo daily ah. tirada dadka uu ku dhacay maadaama dhaqaatiirta Soomaaliyeed ka mid tahay, qiyaas ma haysin? walahi qiyaas dhaba lama hayo, laakiin haddaa baxdo aad suuqaas istaagto oo boqol qof ka qaado sokor aad ka qaado, mid sokortiisa sareyso dhowr sokortiisa sareyso waa ka helaysa. waan iska socdaan inta aan ogeynaaba badanba ilaa qofka uu soo dhaco. laakiin aad iyo aad iyo aad ayuu usii badanaa. aniga waxaan islaayahay qiyaastii 10 qofoodba qof uu qabaa Soomaalida. cadadka tirada badan sida loo arkayo si aan caadi aan ahayn. dadka qaba cudurkaasi waxaa la sheegay inta badan in keliyaha uu saameyn ugu geysto. in qofka markii uu dhakhtarka uu la xiriiro inuu qabo cudurkaasi loo sheego, dhaqitaankaasi in mar walba uu yimaado, iyo in qofka daawadii uu qaato ama uu iska maqnaado. yacni maxaa saameyn ay ku keeni kartaa qofka inuu dhakhtarka qof ku xiran mar walba uusan noqonin? qofka horta sida idealka oo fiicnaan lahayd waxay tahay qofka in 3 bilood mar la arko laga qaado 3 biloodba nooc dhiig la yiraahdo HbA1c, kaasoo tilmaamayo 3 bilood oo soo dhaafay qofkaas isku celin sonkortiisa say ahayd, sonkor controlna ahayd, sonkor control ka baxsan ahayd. markaasi qofka loo sheego waxa uu sameynayo, daawada ma loo kordhinaa, ma daawada laga bedelayaa. laakiin waxaa waa duusan dhakhtarka la xiriirin marna waxaa waa ma aha waa dhibaato waaye, inta dhibaato waaye. qofka Dr. qabo cudurka macaanka yani calaamado uu ku dareemayo ma jiro? waxaa jira dad yani is ogeen haddana cudurkii qabaan, marka calaamado qofkaasi isku arkaayo oo in cudurkaasi macaanka uu hayo si uu dhakhtar ula xiriiro ma jiro? horta cudurka macaanka asaga dhakhtarka cudurka laftiisa dhakhtarka qofka geenayo maxaa yeelay waxyaabaha u horeeya oo arkaya waxaa waaye baahi badan oo qabanayso, cuntadana ma ka dhaqi karo, qofka waa catooba, kaadi badan oo yeelanaa, oon badan oo yeelanaa,
haddii mar qofka mar uu arko kaadi badan oo joogto ah oon badan oo joogto ah baahi qabanayso oo joogto ah caatoon waa inuu dhakhtarka la xiriiraan si toos ah dad badana waxay ku yimaadaan qofaa wuxuu ku leeyahay meel inta ku kaadiyo leeyahay meeshan ku kaadiyaba quraansan buuxda wax kala maaha waxay sonkor u kaadinoo hayaan marka calaamadahaas idin waa maxaa la yiraahaa waa wax qofka u baahan yahay inuu ogaado xafidnaado dhakhtarkana kula soo xiriiro xalka qofka qaba cudurkaasi muxuu yahay xalka waa daawo joogto ah labo cuntada daadkiisa in la soxo hal yiraah mooska iyo timirta iyo malabka iyo waxaan idin kullu waa wax oo kor u qaadi kara waa socod inuu sameeyo exercise uu sameeyo qofku ku control karaa cuntada oo saxdo iyo exercise joogto ah oo sameeyo sokorta uu ku control karaa haddii kale waa daawo la siinaa daawadu qaadanayo ma aha maxaa la yiraahaa subax inta cabiro 120 130 markuu yahay daawadu iska dhaafa ma aha daawadu waa inay joogto ahaato maxaa yeelay cunto cunayo cuntada markuu cunayo kor u sii soconaysa 180 200 haddii gaarto qofkaasi shaki badan inuu diabetes qaba loo badinaya marka daawada oo la joogteeyo raashinka oo la controlo exercise iyo socod oo la sameeyo saddexdaas waa muhiim u tahay haddaadan sameynin waxyaabaha ku soo xigi doona waxaa waaye inay keliyaha ay wax ka noqdaan keliyaha ku fadhiistaan indhaha ay wax ka noqoto neerbayaasha ay wax ka noqoto nabar tugu gaaro oo raysan waayo diabetic ulcer la yiraaha suula qof laga gooyaa maqlaysaa laga gooyaa maqlaysaa lugaa la gooyaa maqlaysaa waxaas u dhibaatooyin oo sokorta ay wadato aad iyo aad toore maadaama aantii ku asteersan tahay maalinta macaanka adduunka maxaa fariinaha ku diraysaa bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay in allaale inta awood ha iska kontrolaan sonkorta gaar ahaan dadka kontonka sano gaaray iyo ka badan fadhigood oo badan yahay dadka balbalaaran waxaa weeye inay iska baaraan sonkorta waa wax ficnaan lahay waayo waxaa waaye meel walbaad ka helaysaa baaritaanka aad ka helaysaa farmasiyaa ka helaysaa isbitaalaa ka helaysaa haddii aad aragto inuu badan yahayna waa inaad dhakhtar ku howla hawshaas aad la xiriirtaa aad u mahadsantahay doctor guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii gaarka ah aad ka daawanayseen TV-ga danan oo aan uga hadlaynay maalinta macaanka adduunka fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet